dunidan aan ku noolnahay waxaa jira meelo badan oo halis badan iyadoo dadweynaha looga digo inay meelaha u dalxiis tagaan si ay noloshooda halis u gelin inkastoo ay sidaas tahay oo ay jiraan meelo halistaas huban haddana waxaa jirta meel aad u halis badan oo ah 99% naftaada ku weyn karto magacayga waa Jaabir Cusmaan JB halkan waa madax dhalinta Soomaaliyeed ku soo dhawow xikmaso haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir page-kana like follow soo dheh sidoo kale YouTube-keena subscribe dhaho mahadsanid daawadaha sharafta leh waxa ka ogow 10 jasiiradood ugu halista badan dunida ku soo dhawow mawduuceena maanta jasiiraddeena tobanaad Miyakajima Island Japan Miyakajima Island Japan jasiiradan waxay ku taalaa badda Philippines waxay koonfur bari kaga beegan tahay magaalada Tokyo ee caasimadda Japan jasiiradan waxay halis ku tahay volcaniga jasiiradan ayaa inta badan hawada ku sii daaya heerar khatar ah oo gaaska sulfuric ah taasoo ka dhigtay mid ka mid ah jasiiradaha ugu khatarta badan dunida waxa cajiib ah sanado badan Miyakajima waxaa loogu yeeri jiray jasiiradda maskarada gaaska sababtoo ah dadka degan jasiiradda ayaa loogu baahnaa inay xirtaan maskaro mar walba oo heerka gaaska sulfuric ay gaaraan heerar sun seeriga digniinta ayaa qarxi jiray isagoo ka wargelinaya dadka deegaanka inay xidhaan wajigashi layaab ma leh kaliya dhowr kun oo qof ayaa wili ku nool jasiiradan jasiiraddeena sagaalaad Saba Island Caribbean Saba jasiirad iyo degmo gaar ah oo ku dhex taala boqortooyada Netherland oo ku taal silsiladda Antilles ee waqooyi bari ee badda Caribbean waxay caan ku tahay jasiiradan bulshadeeda soo dhaweynta leh muuqaalkeeda quruxda badan iyo meelaheeda quusitaanka ee gaarka ah si kastaba ahaatee jasiiradan waxay halis ku tahay khatar ku tahay duufaano halis badan duufaanadan ka dhex dhacaa wax aan caadi ahayn laakiin waxay dhacaan mararka qaarkood jasiiraddeena sideedaad Victoria Island New Zealand Victoria ama White Island waa jasiirad volcano oo qiyaastii 30 mayl 48 kilomitir u jirta xeebta bari ee jasiiradda waqooyi ee New Zealand jasiiradan waa dhul volcano halis badan oo leh dhagaxyo raf ah oo kor ugu kacaya in ka badan 10 feet 304 mitir badda markaad u soo dhawaato jasiiradda waxaa ku soo dhaweyn doona muuqaal qurux badan iyo qiiq ka baxayo xarunta waxaad arki kartaa meesha ugu sareyso stratovolcano weyn oo inta badan la quusiyo sababo cad darteed khatarta ugu weyn jasiiradan waa qarax volcano ah nasiib darasa mid ka mid ah qaraxyadii ka dhacay jasiiradan 2019 ayaa dilay 22 dalxiisayaal ah jasiiradda toddobaad Reunion Island Faransa jasiiradan waxaa leh Faransiiska waxayna ku taalaa badweynta Hindiya jasiiradan quruxda badan waxay caan ku tahay keymo roobaad aad u qurux badan muuqaal volcano qalafsan iyo xeebo qurxoon si kastoo ahaatee daawade ma ahan meesha aad rabto inaad qorsheyso la kulanka asxaabtaada gaar ahaan haddii aad rabtid inaad ku dawaalato 10 sano la soo dhaafay shaak liwaxbadeed ku xeeran jasiiradda ayaa kor u kacay natiijo ahaan tirada weerarada uu geystay liwaxbadeedka waxay bilaabeen inay kor u kacaan sanadkii 2013 waxaa la mamnuucay dhammaan dawaasha si loogu hortago weeraro kale uu geysto shaak daawade hadda dadka waxay ku dawaalan karaan meelo kooban oo gaar ah oo la ilaaliyo jasiiradda lixaad Komodo Island Indonesia daawada inta badan jasiiradaha Indonesia ku yaal waa jano kuleyl leh xeebo ciid dheer si kasta ha ahaatee jasiiradda Komodo ayaa hooy u ah khatar ba'an jasiiradan oo qayb ka ah silsiladda Sunda ee jasiiradaha Indonesia waxay hooy u tahay in ka badan 4000 bahalka loo yaqaan Komodo bahalka Komodo waa qoratada ugu weyn uguna qalafsan adduunka dhererka bahalkan ayaa gaaraya 3 mitir culayskiisuna waxa uu ka badan yahay 91 kg sidoo kale waxaa la yaab leh oo ka sii daran waxa ay leedahay ilka fiiqan iyo candhuuf sun ah oo aan caadi ahayn bahalkan Komodo ayaa lagu yaqaanaa inuu weeraro bini'aadamka marka waxaa lagu taliyaa dadka booqda jasiiradan inay masaafo siiyaan oo ay ka fogaadaan bahalkan halista badan jasiiradda shanaad Bikini Atoll Marshall Island Bikini Atoll waa dhul badeed oo aad u balaaran oo ku yaal jasiiradaha Marshall oo ka kooban 23 jasiiradood inkastoo jasiiradaha ay leeyihiin qurux dabiici ah balse jasiiradda Bikini ayaa ka mid ah kuwa ugu khatarta badan adduunka aaga jasiiradan ayaa caan ku ah in ay tahay goobta in ka badan 20 tijaabooyin nuclear ah lagu sameeyay Mareykanka wax uu tijaabooyinka ku sameeyay inta u dhaxaysay 1946 ilaa 1958 1954 wax ay noqotay mid ka mid ah meelaha kaliya adduunka lagu qarxiyay bamka nuclearka si aad u argagax badan natiijo ahaan jasiiradan ayaa ah meel aan la degi karin sababtoo ah heerarka shucaaca dilaaga ee hubka nuclearka jasiiradda afaraad Ramri Island Myanmar Burma jasiiradda Ramri waxay ku taalaa meel ka baxsan xeebta gobolka Rahinai badka ay ku fadhido waa 1350 kilomitir
jasiiradana waxay khatar ku tahay waxaa ku badan liixaaska biyaha dhanan xajmi ahaan ka weyn liixaaska webiga kana halis badan jasiiradan waxay caan noqotay dagaalkii labaad adduunka markii boqolaal askari oo Jabaanees ah kuwaas oo dabada ka riixaya Ingiriiska ee liixaasyo badan ah ku cuneen seeraha mangaroofka sheekadan ayaa xitaa lagu diiwaan geliyay buugga Guinness World Record in ay tahay weerarka ugu weynaa ee isku mar ah ee xayawaan ku qaadaan aadanaha tan iyo markaas qaar ayaa ugu yeedhay jasiiradda liixaaska jasiiradda saddexaad Gruniet Island Scotland jasiiradda Gruniet waa jasiirad yar oo Scottish ah waxaa kaloo loo yaqaanaa jasiiradda Kudka sababtoo ah dagaalkii labaad adduunka dawladda Ingiriiska waxay halkaas ku tijaabisay hubka noolaha iyadoo adeegsanayso bakteeriyada loo yaqaan Anthracis daawada si aad u fahanto bakteeriyada halista ah loo yaqaan Anthracis waa cudur faafo halis badan oo ay keento bakteeriyada gram positive ah bakteeriyada loo yaqaan Bacillus anthracis kudka dabiici ah ayaa looga heli karaa ciida wuxuuna caadi ahaan saameeyaa xayawaanada gudaha iyo duurjoogta daawada muddo dheer kadib jasiiradan ayaa si buuxda u xirneyd waxaana loo tixgeliyay meesha ugu khatarta badan meeraha qiyaastii 1986 cilmi-baarayaasha waxay bilaabeen inay nadiifiyaan jasiiradan iyagoo ku buufiyay 280 tan oo formaldehyde ah oo ay ku khasi jireen biyaha badda si ay ugu saaraan ciidda wasaqda jasiiradda labaad Ilha de Queimada Grande Brazil jasiiradda Ilha de Queimada Grande waxaa lagu naanaysaa jasiiradda masaska waa jasiirad ku taal badweynta Atlantic 35 kilomitir waxay u jirtaa xeebaha São Paulo Brazil waxay ku taalaa meel sare 200 mitir ka sareysa heerka badda waxay halis ku tahay jasiiradan masaska waxa adduunka dhan loogu yaqaanaa guriga mid ka mid ah masaska ugu khatarta badan adduunka jasiiradan waxaa ku nool 4000 oo ah maska loo yaqaano Golden Lancehead Fiber maskan waa mid aad u halis badan suntiisana aad u khatar badan caalamka taasoo ka dhigtay jasiiradan mid ka mid ah meel aan la haweysan karin dalxiiskeeda sidoo kale ciidamada badda ee Brazil waxay ka mamnuuceen dhammaan dadka rayidka ah inay booqdaan jasiiradan kaliya dhowr cilmi-baarayaal ah ayaa loo ogolaaday inay soo galaan jasiiradda koowaad North Sentinel Island India jasiiradda North Sentinel Island sidoo kale loo yaqaan jasiiradda go'doonka waxay ku taalaa gacanka Bengal waa mid ka mid ah jasiiradaha Andaman jasiiradan ayaa khatar ah xitaa laga soo agdhawaan karin sababtoo ah waxaa degan qabiilka Sentinelska kuwaas oo ah qabiilkii ugu dambeeyay aan la xiriiri karin adduunka waxay si adag u ilaaliyaan dhulkooda Sentinelska waxay caan ku yihiin cadaawada ay u qabaan shisheeyaha iyo qof walba jasiiradda ku soo agdhawaada Sentinelska waxay necib yihiin booqadayaasha waxay sidoo kale caan ku yihiin inay warmo iyo falaaro ku weeraraan dadka sanadkii 2006 laba kalluumaystay ayaa lagu dilay jasiiradan markii ay ku meydheen xeebaha jasiiradda 2018 adeegayaal Mareykan ah ayaa lagu dilay sidoo kale jasiiradan markay isku dayeen inay xiriir la sameeyaan dadka Sentinelska sharciga dawladda Hindiya wuxuu mamnuucayaa u safrada jasiiradda waqooyi Sentinel si loo ilaaliyo qabiilkan taasoo la micno ah in isku day kasta oo lagu soo booqdo jasiiradan ay tahay sharci daro oo suurtagal ah inaad naftaada halis geliso haddii aad halkan nala soo gaartay waad mahadsan tahay ugu dambeyn haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar la wadaag asxaabtaada oo share intaan muuqaalkan leeyahay ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo